aad baad mahadsantahay insha allah bismillahi raxmaan raxiim dhegeystayaasha qiimaha iyo qaayaha badan meel kastoo naga dhegeysan dunida dacaladiisa kusoo dhawada mar labaad radio Soomaali weyn ee Sweden oo aad uga barateen maalin walba sabti ah inaad ka dhegeysataan mowjada 88 FM ta ama barta Facebooka ee radio Soomaali weyn aan TV sida Axmed inoo sheegay maanta barnaamij khaas ah oo waxaan u haynaa ummadda Soomaaliyeed ee radio Soomaali weyn ku xiran iyo adduunka dacaladiisaba waxay codsiyo badan soo codsaday kadib waxaan maanta nasiib u yeelanay inaan u fulino codsiyadiino imaan jiray mid ka mid ah ee ahaa in aan u helno madaxda sare ee qaranka Soomaaliya gaar ahaan mudane safiirka u fadhiya dowladda federaalka ee Soomaaliya ee midowga Europe iyo Belgium mudane Ali Fiqi ay waqtiga maanta marti inoogu ah ayaan ku soo dhaweynaa barnaamijka martino waa mudane Ali ku soo dhaw marka hore barnaamijka waa mahadsantiin waa idin salaan diran kadib sida ogtihiin dhageystayaasha qiimaha iyo qaayaha badanba waxaa muddo dhowr sano ka soo wareegtay hadda ay fariimo kala duwan ka imaanayay muwaadiniin Soomaaliyeed ee ku dayacan wadamo ka mid ah adduunka siyaabo kala duwan ugu xirnaa oo fariimo kala duwan u soo dirayay dowladda Soomaaliya tan iyo markii ay timid dowladda madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ilaa iyo heerar kala duwan ra'iisul wasaare iyo heer wasiir arrimaha dibadeed iyo safiiro diblomaasiyiin Soomaaliyeedba ay dhaxda u xirteen si ay ugu soo celinayaan xorriyadooda muwaadiniinta Soomaaliyeed ee dunida dacaladeed ku haafsan qaarna lagu guuleystay qaarna ilaa hadda uu socdo barnaamijkooda waxaa fariimaha ka mid ahaa dhalinyaro ku sugan xabsiyada Liibiya oo arabna marka hore intaan mudane Ali aan wareysan inaan idin wadaagno dhageysi wacan marka xiriirta nolol socodii arabnaa aad baan shugu dhibaataysanaa hadda waxba nala siiyay alxamdulillah oo nan baan oo qalo xabaan oo qalo marka dadaalka nolol sii ku jiro سلمان أول من كلا صاش وعين كان للسيء ونبى نلاقى لبعضي عقبتي ورا وانا لقيتها ولا لو إحنا قاعد سنة ولا الصوف ولا هاي الصومالي لبعضي سبنا هاي إلى مدحنا الصومالي يو رئيس الوزراء المولا هذا الشخص ولبعضنا عقبتنا هاي استنا لقى صار هذه تلك يجينا له عليه حتى رالي بنكون هاي مرقولي حرية مرقولي هنا للسيء حرية الآن بنا هاي استي هالمر حرية هالو وحنو mudane Ali aad iyo aad qiimo iyo sharaf bay noo tahay inaad maanta barnaamijkan qiimo badan aad waqtigaaga qaaliga noo soo horto mar labaad waxaan ku leenahay ku soo dhawow waa barnaamijka arrimaha siyaasadda iyo maanta diiradda aan ku saareyno dhacdooyinka aan hore u soo sheegnaba dhalinyarada Soomaaliyeed gabdho iyo wiilal isugu jira dunida dacalada ku saabsan tan iyo markii dowladda Maxamed Cabdullaahi Farmaajo madaxweynaha ummadda uu yimid xilka dadaaladii la qabtay adoo wax noo soo guurmaraya mudane السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هرت واحد وقعت تاني مركي أساسي أرمها هنتي ماركتي جارهان أرمها Soomaali da ku dhibaataysan dibadda waxaa la siiyay maaragtay priority gaar ah inkastoo dawladda waxyaabo kala duwan ay wadan gudihiisa ay ka qabatay oo maaragtay mashaariic ha ahaato maaragtay in maaragtay shaqaalaha dawladda markii ugu horeysay mushaar joogto ah ay qaataan in maaragtay airportka Soomaaliya uu noqdo markii ugu horeysay airport international diyaarad saacadey rabaan ka dhoofi karaan saacadey rabaan ka soo deegi karaan in hawada Soomaaliya laga maamulo marka in waa aragtay maaragtay madaxweynaha booqashadii oo nabadda uu ku tagay gobolada maaragtay Puntland iyo Galmudug xiisaha ummadda Soomaaliyeed ee dawladda u qabto marka runtii waxyaabo fara badan dhanka amniga xamar hool
wax wadan baa laga qabtay inkastoo cadowga maaragtay cadow rabo inuu dhinto qof rabo inuu dhinto maaragtay oo isqarxiyo sida loola dagaalami lahaa ay adag tahay laakiin amniga naftii wax weyn baa laga qabtay marka arrinta kale oo maaragtay oo hadda maanta aan ka wada hadlayno oo ah dadka dhibaataysan Soomaalida dibadda ku dhibaataysan kuwa Ethiopia ku xirnaa kuwa maaragtay India ku xirnaa kuwa waxay ku xirnaayeen Seychelles kuwaas oo dhan dawladda culays weyn bay saartay inay dadka soo daasho sidoo kale waxaa jiro sida ka warqabtaan sanadkii la soo dhaafay waxaa aad u soo shaabaxay in dad Afrikaan ah oo Liibiya jooga lagu iibsado lagu adoonsado marka arrintaa markay dhacday kadib ayaa waxaa dhacday in madaxweyne Farmaajo uu maaragtay amar ku bixiyay oo aniga i xilsaaray arrintaas inaan wax ka qabto tan iyo November-tii la soo dhaafay ilaa haddeertaan maaragtay mashquulkaas ayaan ku jirnay inagoo maaragtay markii ugu horreysay ka dhaadhicinay European Union-ka inay arrintaa wax ka qabato waayo maaragtay iyaga naftooda lug bay ku leeyihiin maaragtay dhibaatada ka taagan Liibiya waayo iyaga ayaa xirtay dadka siday kusoo gali lahaayeen wadanka Europe marka Europe waxay facilitate dadka u ogolaatay maaragtay hay'adaha ay u ogolaatay IOM iyo UNHCR ka lacag inay siiyaan oo dadkii rabo wadankooda in lagu celiyo intaan rabina wadankooda in lagu celiyo in la geeyo maaragtay wadan kale oo Afrikaan oo la yiraahdo Niger xiriir qaxooti ah meesha lagu hayo marka anaga ka Soomaali ahaan arrintaas culays weyn baan saarnay culayskaas oo ah in maaragtay runtii dhalinyarada ku dhibaataysan Liibiya laga qaado arrimaha aan hore u soo sheegnay tii oo dadka ku xirnaa maaragtay ama Ethiopia ama maaragtay Seychelles ama India waxay ahaayeen dad rabay wadankooda xabsiga ka soo baxan wadankooda inuu noqdaan dhalinyaradan way ka duwan waa dad maaragtay soo haajiray oo rabo nolol kale inay raadiyaan oo damacsan inay Europe yimaadaan marka runtii inkastoo ay dhibaato aad u foolxun ay marayaan ay dhibaataysiin wili caqliga ayaa ka qaldan oo waxay aaminsan inay Europe imaan karaan oo maaragtay aysan raali ka ahayn inay wadankii lagu celiyo marka laakiin sidaas ay tahay anaga hadda waxaan olole weyn ayaan galnay anagoo la kaashanayna maaragtay hay'adaha IOM iyo UNHCR-ka waayo Liibiyiintu waxay leeyihiin anaga waa in maaragtay dadkaan laga kaxeeya dadkaan sharci daray ku soo galeen magac Liibiyana way baabiyeen waayo Liibiya dawladda Liibiya hadda meel ay xukunto male meesha waxaa haddii dawlad aysan jirin waxaa soo baxay dad oo criminals ah magafiyaal ayaa ummadan gacanta ku dhigay oo ka bic mushtaro oo waxay rabaan ku sameeyaan hatta iibiya gabdhaha iska fuulo ah maaragtay marka xuquuqul insaan maaragtay arrimo khaas ah oo xuquuqul insaanka ayaa aad loogu xadgudbay marka dawladda Liibiya hadda dhisan oo la aqoonsan yahay waxay rabtaa dadkaas in laga kaxeeyo marka anaga Soomaalida waan u tagaynaa waan la xiriirnay safaarada hadda meesha noogu taala idin nafteeda warbixinna siiso waxaan damacsanahay in dadkaas inta doonayso inay noqdaan inaan qaadno waan gartay muxuu ahaa ii sheeg tan inay ka duwan tahay waa noo sheegtay sidee ku xaqiijisan inay ka duwan tahay kuwii masalan laga keenay India Ethiopia iyo Seychelles xiriira ma jira hor u bilowday kuwaas waxa waaye maaragtay waxay ahaayeen dad xiran oo damacsanaa in xorriyadooda dib u helaan hadda weed waxaa dhacday 94 dhalinyaro ayaa waxay beer lagu haystay ay ka soo fakadeen deegaankaas meesha dadkii joogay ayaa isxilqaamay dadkii waa la qaaday waxaa la geeyay magaalo la dhaho Kufra oo koonfurta maaragtay Suudaan oo xuduudeeda u dhow maaragtay meeshii baa la geeyay meeshii markii la geeyay anaga marka waxaan isku daynay inaan la xiriirno IOM inaan dhahno war nimankaas haday diyaar yihiin la soo qaado nasiib darro iyadoo loo diyaar garooway oo qorshaha uu ahaa inaan ama Tripoli aan keeno Tripoli aan ka qaadno ama Benghazi magaalada la keeno Benghazi laga qaado sida xamar lagu geeyo markii loo sheegay la yiraahdo intii rabto Soomaaliya inay ku noqoto waxay yiraahdeen ma anaga Soomaaliya uma socno marka laakiin se anaga taa kaliya kagama harayno waayo dad waxaa jiro runtii oo rabo inay noqdaan ay hadda baqdin un ka tahay oo maaragtay dadka hortooda haddii wax la helayo aad naftaa inaad wax heli dadka ka harin un bay ka tahay moogi
laakiin xaqiiqda markay ay ogaadaan qaar noqonayo horta waa la helayaa anaga hadda dad badan ayaa noo registraraysan oo ogol inay waddanku noqdaan iyagana diyaarad waxaan u sahlinaynaa inay siday waddankooda ku tagi lahaayeen laakiinse hadda sidaad ka warqabtid waxay u kala duwan yihiin wax kale maaha kuwaan waxay damacsan yihiin inay Yurub yimaadaan ama qaxooti meel kale loo qaado waxay isleeyihiin damac baa ku jiro kuwaas waxay ahaayeen dad maxbuus ah xirnaa oo damacsanaa mar un waddanka hooyo la geeyo waa gartay haddii la kulan yahay waxaa ka dhawaajisay inay ka duwan yihiin kuwaan dadka inta badan saa uma fahansana rabitaankuna waxuu ka yimaadaa muwaadinka soomaaliga ah ee dowladdu ay kista yar awooddeeda haddii ay u muujiso inuu raaco sidee isleedahay marka waa lagu xalin karaa in lagu hanto ama laga dhaadhiciyo in dhulkii hooyo uu nabad yahay lagu celiyo nabad dadku waxay qabaan ay la qabaan horta fiiri way sahlantahay wayna adag tahay qofka dhibtooday oo runtii dhab ah maray oo mar uun leeyahay hal ii kaxeeyo waddankan hal iga kaxeeyo horta anaga kuwaa dhib kuma qabno waxaa dhibaatada ka imaanaysaa maaragtay qaaran weli fahansaneen inay waddan shisheeye ay joogaan oo sharci darre ay kusoo galeen oo lagu xiri karo askarta hataa xiri karto askarta markay xirta qaarkood haddana way sii iibiyaan ma fahanti marka hor dadkii qofka haddii uu dhibaatada haysato uusan fahmin dowladda waxay ka qaban kartaa yar dowladda waxa waaye anaga waxaan diidaynaa in soomaalida waad ka warqabtaa waxa waaye dacaayadahooda iyo maaragtay iyo fidnadooda anaga waxaan diidanahay in dowladda loo arko dad khasab ay ku kaxeynayso inkastoo runtii hadda xaaladda ay ku jiraan inay waajib tahay in khasab ahaan lagu kaxeeyo laakiin sidaas ay tahayna dowladdii waxay rabtaa keliya inay qaato inta doonayso inay waddan ku noqoto ma fahanti marka anaga fikirkaas ah ayaan u sheegaynaa iyagaan kala hadlaynaa markii groupka ugu horreeya la qaado ay ogaadaan in dad la qaada iyaga isoo waxaan aaminsanahay iyaga inay mataqaana imaan doona ay dhihi doona waan anagana waan bixinaa sababta waxaa waaye dad baa ka dhaadhicinaya waa laidin kaxeynayaa meel kalaa laidin geenaya qaxooti dibaddaad helaysid waxaasoo dhan waa damac oo aan jirin la gelinayo sidaad ka warqabtid hadda Yurub waa isoo xiri rabtaa Yurub waxaad dad Soomaaliyeed maalin kasta yimaada Norway ha ka yimaadaan ama wadamada kale oo Scandinavian-ka ku dhahay maaragtay anoo sharci leh ayaa la iga qaadi rabaa la dhoofin rabaa marka kuwa hadda cusub hadda waqti uma haayaan inay qaataan mana ku tala jiraan inay qaataan siyaasadda Yurub hadda waxay noqotay sidee dadka Afrikaanka soo qaxay waddankooda loogu celin lahay intaas ay waxay ku bixinayaan millions oo euro ah marka fikir ka jira oo runtii la rabo in la ogaado horta waa ka وارون مدن سفير وارون حالadaha Yurub iyo dhanka qaabilaadda qaxootiga marba mar ka dambeys way sii adkaanaysaa saa sheegtay dhalinyarada Soomaaliyeedna ee hadda ku soo wajahan wadamadan Yurubta ah waxay u baahan yihiin wacyigelin aad iyo aad dhulkii iyo dibaddaba kuwa joogaba in la iska kaashado oo loo sheego in marxaladii shalay inay maanta ka duwan tahay intuu dad irdii ay xirteen marka taasna waxay baanta wacyigelin go'aada haddaan taa ugu soo haro intaa su-aasha xigta aan rabaa inaan ku weydiiyo mudane safiir waxay tahay maadaama tahay safiirkii Soomaaliya u fadhiya midowga Yurub iyo Belgiumba baasaboorka Soomaalida badana dadku dhib ayay ku qabaan dowladdan waa dowlad jirta oo la ictiraafsan yahay wadamada qaarna iyagoo leh safaarado inay ku leeyihiin dhulkii Soomaaliya haddana baasaboorka Soomaaliya kama shaqeynayo ku leeyihiin wadamadooda markii safar loo soo aadayo arrinta taa ah maxaa ka diblomaasi ahaan ama dowladda wasaaradda arrimaha dibadda qorshaha ka wada arrinta horta arrinta anaga tan iyo intaan joogay 40 sano oo ugu dambeysay dagaal dheeraad baan u galay sidii baasaboorka Soomaaliga loo aqoonsado marka hadda la iskuma haysto baasaboorka Soomaaliga inuu yahay baasaboor fiican hadda waxaa la isku haystaa waxay ku leeyihiin sida loo qaato baan anaga shaki ka qabnaa marka waa xujo meel taagan anaga markuu horeyso waxaan ku niri waxaad sameeynaysan ma ogolaada baasaboorada maaragtay kiskis aan u bilaawno ogolaada baasaboorada diplomaadka iyo serviceka kadibna baasaboorka ordinaryga caadiga ahna markaas waa ka wada hadli karnaa
marka hadda waxaa jirto warbixin ay kasoo shaqeeyeen dowladda Norway oo hadda meel kasta aan u dirnay oo cadeynaysa in maaragtay baasaboorka uu yahay baasaboor runtii oo laisku haleyn karo midda kalena waxa waaye siyaasad ahaan dadka kan waxay diidan yihiin runtii Soomaaliya arrinta lagu haysto ma aha maaragtay baasaboorkeeda qaldan ama baasaboorkeeda sida kale ah waxay leeyihiin dadkan waxay diidan yihiin maaragtay qaxooti bay la dagaalamayaan qaxootiga ay la dagaalamayaan darteed ayaa waxaa mataqaana marka kusoo waxay ka dhiganayaan mataqaana baasaboorkii inaan la aqoonsanayn baasaboorkii wuxuu leeyahay wax alla wixii character ah oo characteristics ah oo baasaboorada kale caalamiga ayuu leeyahay baasaboorka hadda aniga marmarka qaarkood shaqaalehay intay ka shaqeeyaan Soomaalida intaa maaragtay loogu buuxiyaa magac hadduu isqaldo horu ka garanaya magacaaga Maxamed hadduu ahaa magacaaga loo qoro meeshii M iyo E iyo D magacaaga ku dhamaanaya haddii M A D loo qoro kaliya baasaboorka wuu reject gareynaya wuxuu maadaama ninkii baasaboor hore u qaban jiray baasaboorkii hore u ogaanaya hataa sawirku soo saari kara magacaaga hadaa qaladid si aad u qortid isdhaafisid baasaboorka hadaa hore baasaboor u lahayd isla markii hore ka soo saaraya marka baasaboorkan waa baasaboor nidaamkan hadda maaragtay standardka adduunka ayuu waafaqsan yahay marka waxaan rajaynaynaa in maaragtay dawladaha shisheeyaha gaar ahaan dawladaha Yurub inay mataqaana ay ku qancaan maalin ay dhahaan maanta wixii ka dambeeyay baasaboorka maaragtay waan ogolaan doona mid kale ogaaw baasaboorka diidmadiisa waxay ku xiran tahay shakhsiga marka xafiiska joogo kulligood ma wada diidin ani marar badan baan tijaabiyey qaar ku dhahay war baasaboorkan ani liima ogolo inaan wax ku aan istampaareeyo aan maaragtay timber ku dhufto qaar waxay ku leeyihiin keen isaga naftiisaan ku dhufanayna marka iigii hataa weli wax oo maaragtay cadeen ah ma laha marka laakiin waxay noqonaysaa siyaasadda warbixintan arrintan hadda waxay noqonaysaa siyaasadda arrimaha dibadda ee Soomaaliya in dadaal maaragtay dheer la geliyo in baasaboorkaas markii ugu horreysay at least kuugu horreey baasaboorka diblomaatiga ee ku serviceka la ogolaado oo team maxaa la visa lagu dhufan karo kadibna maaragtay in baasaboorka caadiga loo gudbo waxay u baahan tahay dadaal dhinaceen uu ka yimaado culeys inaan saarno dawladaha asxaabtaan la nahay aad iyo aad mudane waqtiga qaaliga aan soo mar labaad waan kaaga mahad celinaynaa waqtiga gabagaba ah su'aasha aan rabay inaan kula wadaago marka ugu dambayso waxay tahay ummadda waxa la Soomaaliya waxay tiri sadar muuqdo su'aal ka dhan hal sano hadda dawladda way soo jirtay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi uu ka yahay hormuudka wax qabad la taaban karana ilaa hadda dadku ku qanacsan yahay way sameysay muddo 12 bilood laga soo wareegay waxaan u harsan 3 sano horaan hadda horteena ah 2 sano hadda kadib xaggee way taagantaad isleedahay adiga ka ahaan ka diblomaasi ahaan mudane Cali Fiqi horta fiiri dawladihii kale waxay uga duwan tahay waxa waaye dawladdan waxay rabtaa si dhab ah Soomaalinimo inay wax u qabato carqaladaha hortaagana waxa waaye siyaasiyiin ama gaar ah wato oo diidan dawladdan inay sii dhaqaaqdo ma fahad dawladda shisheeye dabcan iyagoo isticmaalaya maaragtay laakiin waxaan aaminsanahay aniga rabitaanka siyaasi ah oo hadda soo kordhay oo madaxweynaha la yimid prime minister ka yimid waxaan qabaa in maaragtay wax weyn ka bedeli doonto Soomaaliya hadda sanadkan waad aragtay dawladdii oo waxba iyadoo wax cad lagu haynin dagaal joogto ah oo siyaasi ah buuq joogto aan dhamaanin marka laakiin prime ministerka iyo madaxweynaha waxaa ka go'an in runtii Soomaaliya hor u socoto waxaan qabaa aniga marka 2 sano soo socoto in hool culus la qaban doono hoolaha dawladda hadda ay ku mashquulsan tahay ku soo qaado waa in mataqaana canshuurtii la bilaabo in la qaado wasaaradda maaliyadda waxay mashquul ku tahay in maaragtay arrinka isaga ay fuliso waxaa maaragtay dastuurkii reviewgiis maaragtay in la sii maaragtay dadkii la deegaamadii la gaarsiiyo si loo dhameystiro dastuurka
waxay ku mashquulsan tahay in ciidan qaran ah la suubiyo taana runtii waxay dowladda keligeed ma qaban karto taa maskaxdeeda ku darsada waxaa dowladda ilaa dowladda haddaysan ka helin maaragtay wada shaqeyn joogto ah oo dhab ah haddaysan ka helin maamulada ka jira wadanka way adkaanaysaa in maaragtay ciidan qaran la dhiso marka waxay kaloo dowladda ay maaragtay ay saaraysaa culeys ay saaraysaa siyaasadeeda arrimaha dibadda sida maaragtay imageka maaragtay sawirka guud ee qaranka kor loo qaado Soomaaliya waxay ku tala jirtaa in maaragtay ay runtii iyada nafteeda lacag ay abuurto lacagaha la abuurayo waxaa kamid ah sida canshuuraha sidaan soo sheegay waxaa kamid ah kalluunkii oo maaragtay Soomaaliya in maaragtay laga faa'iideysto meeshii lacag fiican kasoo gasho marka gadaal dama dowladda ay usoo jeesato maaragtay runtii dhismihii iyo wadankii investment lagu sameeyo taa marka ani waxaan qabaa 2 sano soo socota howl weyn ay oo miro dhal ayaa laga qaban doonaa aad iyo aad mahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa safiirka Soomaaliya ee u fadhiya midowga Yurub iyo Belgian mudane Cali Fiqi oo aan wareysi gaar aan ka qaadnay oo ku saabsanaa xoogiisa dhalinyarada Soomaaliyeed ee xabsiyada ku jira gaar ahaan oo hadda madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo usoo magacaabay ama uu soo xilsaaray inuu arinta u kuura galo si loo hanan lahaa mar labaad u soo hanan lahaayeen xorriyadooda intaan barnaamijkan mid la mid ah dib u kulmi doono waxaan idinkaga tegaynaa kulan dambe xiiso leh